رسولك صلى الله عليه وسلم قال لمني لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله geeridu xanuun badana sakaraadkeedu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas gabadhiisii Faadimo waa karba abaa Allah abahay maxaa maanta kurbahaysa laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm maanta kadib abaha ma kurboonaya Faadimo kaale isoo dhawow dhagtu waxa uu sheegay way ooyday hadana waa uu yeeray dhagtu waxa uu sheegay way qosashay marka hore dhagtu waxa uu sheegayna wuxuu ku yiri xanuunkan kama kacaya waa u dhimanaya markii dambe way qosashay dhagtu waxa uu sheegay wuxuu ku yiri dadkayga iyo caruurtayda qofka igu soo xiga ee soo gaaraya adiga weey sida awgeed rasuulka 6 bilood bay ka geeri dambeysay kaleey salaatu salaam ahlu beedkiisa qofkii dhintay nabi maxamed dabadi Faadima ugu horeysay radiyallahu ta'ala anha gabadhiisa markuu la hadlay Fatima bint Muhammadin Faadimadii ina Muhammad ahayday salini min maali ma shiiti abo maalkayga iyo adduunkan haysto waxaad rabtay weydiiso waa ku siinaya la uqni anki min Allah shay'an laakin ilaahi agtiisa xogaaga ma qaban karaan daadan soo amal falanin oo soo dadaalin in nabi maxamed baan ahay intaad istiraadin isku kay soo haleeni buu nabigu leeyahay soo amal fala salawaatullaahi wa salaamu amal falasha leeyna ka raba ilaahi inuu amal falano oo aan habeenada nool ka faa'iideysano aakhiradeenna ka faa'iideysano waqtigeena ka faa'iideysano umrigeena ka faa'iideysano